assalaamu calaykum. waa islaamantiin dhammaantiin meel walba daafaha caalamka ka joogtaan. siyaasaddu ma lahan walaal, saaxiib, adeer, abti, midna ma leh. shalay dadkii lahaa ciidan hebel meel hebel bay jiraan oo 3,000 baa dhimantay oo 180 baa dhaawaca oo intaasaa ka soo hartay. maanta waad ujeetaan madaxweynaha hadda jira ee mudane xasan sheekh ee lahaa shalay dadkaas waxaa waaye dad la qashay ama dad meel ku baaba'ay ama dad si kale noqdeen. maanta u jeedaa sida ay yihiin. in waxa xaqiiqda laga abaaldhaco maaha. xisbi waa taageeri kartaa, balse ma ahan inaad wixii qaldan aad qariso, wixii saxsanne aad been ka sheegto. maanta waa ujeedaan ciidanka quruxdiisa iyo tababarka uu haysto. waxaan leeyahay dadki shalay qaladka ku hadaaqayay, yes, shalay madaxweyne farmaajo waa taageersanayn, xisbigiisana waa ka mid nahay, aadna xisbi kalaa ka tirsan tahay. that means ma aha in dowladnimada nacab yahay. dowladda hadda jiro waa taageersanahay, waana taageeri doona. qof walbo yimaadana waa taageerinaa. laakiin mucaaradnimadu ma aha in adeerka haddii aan kasoo horjeedo that means inaan qabiilkaaga nacbana. ya ma ahan. ogow maanta inaad dhahdid mahadsanid madaxweyne waad qirsan tahay jecla. you have to say thank you Mr. President. qabyaaladdu wax ma tartee, qarannimadu aan u hiilino. ciao.